waa makhaayad waxaa ka shaqaysta caruur badan oo caseeya oo noloshooda qoysaskooda ku dabara waxaa jira qoys laba wiil ay caseeyo u ahaayeen oo noloshooda ay ku tiirsaneed hooyadu waa indhoole aabuhuna nin xooga dadkan naafada waa isaguna labadaas wiil maxay nolosha qoyska ku tiirsaneed caseeya ah labadiiba qarax ay ku dhinteen nin ismiidaamiyey ayay ku dhinteen qaraxooda bal qoyskaas ka waran marka noloshaas maxay galabsadeen caruurtaas ma xallin karaa askari ma ahayn caseeyaal bay ahaayeen dadka kaba laba caruur yar iyo saqiir ah oo qofka 2,000 kabaha ugu caseeya shilin Soomaaliya haddana family ay ka dambeeyaan maxay galabsadeen nolosha marka fiiri qaraxii ugu dambeeyay hadda waxaan xasuusanaa sooba ka dhacay waxaa ku dhimatay hooyo cunug yar xambaar gabar yar baa hooyadeed qaraxii ku dhimatay oo caalkiisa askartu iyo kor u haayaan gabadhaas hooyadeed maxay ku weysay saqiirka wasaarad kama shaqeynin hooyada jidka iska maraysa marka caqliga saliimka ah marka qaar wuxuu ku tusayaa dadka Soomaaliya nolosha loo diidan yahay hogaamiyaasha nimankan al-shabaab hogaamiyaashooda caruurtooda isma qarxiyaan dagaal lama galaan iyagu naftigoodana isma qarxiyaan marka weliga nin amiiro isqarxiya ma maqasho ama wiil u dhala isqarxiya ma jiro bal waxaa laga yaabaa waxaan siyaasaddu waa kursiga ku raadinaya beri kamaan waxaa laga yaabaa soo wasiir inaad aragto ama xildhibaan aad aragto ama agaasima inaad aragto ama wiilkiisa aad aragto ama gabadhiisa dowladda u shaqaysa inaad aragto waxbay bartaa waa ku daalaynaa marka haddaan dhahno war dhallinyaradan la hadlayna haddaan dhahno waa ku daalaynaa sababtoo ah dhallinyarada u dagaalanta maba haystaanba imkaaniyaadka warkiina ku gaari lahaa mararka qaar telefoon ma haysto idaacad ma dhegeysto telefishin ma fiirsado duurkaasuu ku jiraa kliininkaas taasuu aaminsan waan ku daalaynaa marka